Somaliland oo go'aamo ka soo saartay shirarka qabaa'ilada iyo afxumada. Somaliland ayaa sheegtay in tilaabo laga qaadi doono cid kasta oo ku kacda fil nabadgelyada waxyeelaya iyo abaabulka qabaa'ilada. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu yiri waxaa la isla qaatay in tilaabo sharci waafaqsan laga qaado dadka ku baaqa arrimaha nabadgelyo darrada ah oo sharciga la horkeeno qof kasta oo ku kaca wax taabanaya nabadgelyada guud ee Somaliland. Waxaa la isla go'aamiyay in tilaabo sharci waafaqsan laga qaado dadka warbaahinada ku baahaya cayda aflagaatooyinka lagu kala qaybinayo bulshada kuwaas oo abuuraya colaad iyo xumaanta bulshada dhexdeeda ka dhacda ayaa lagu yiri war-saxaafadeed. Man saxaafadda ay ka fogaataa inay baahiso hadallo xanaf leh oo dhaawacaya wadajirka bulshada iyo guud ahaan Somaliland ayaa lagu yiri go'aamadii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha. Sidoo kale waxaa la go'aamiyay in maanta laga bilaabo la joojiyo in hoteelada iyo meelaha la iskugu yimaado lagu qabto shirarka qabaa'ilada. Isla markaana waxaa la farayaa hoteelada inay ka digtoonaadaan shirarka qabiileysan talaabana laga qaadi doono cid kasta oo ogolaata shirarka caynkaasi. Ugu dambeyn waxaa la go'aamiyay in la adkeeyo amniga guud iyo xuduudaha. Go'aamahan ayaa imaanaya kadib mudaharaad dhawaanahan ka socday oo laga soo horjeeday maayarka Hargeysa iyo shirar qabiileysan oo ka socda magaalada.